السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta idinku soo dhaweynaynaa projectka Aqua Calaf. dhulkeena hooyo loo hagar baxaba inaha qabtiraaye wala ma huraane hawlaha danteena iyo horumarkeena ayaynaanu kala Aqua Calaf waxa gacan weyn ka geystay Mastercard Foundation iyo Earth University iyo waliba Mustafa Ali Deeqa oo ninka beertanska leh naguna kaalmeeyay inaan ka projectkan ka bilowna halkiisan projectigan waxa uu ahaa mid ka dhashay karti iyo maskax ka timid ardayda ka baxday jaamacadda Earth University iyo waliba iskuulka Abarso Schools عاوسكن waxa la yiraahdaa mulato asalkiisii hore waxa uu ka soo jeedaa geeska Afrika waana caws ay horumarisay company-ga loo yaqaan Kayat ee Colombianka ah cawskan sidii hore waxa loogu tala galay inuu noqdo mid xaddi ama wax soo saar badan leh oo biyaha yarna ku baxa sanadkii 2018 bilowgiisii ayaa aniga ah Khalid Ahmed Ali iyo saaxiibkay oo jaamacadda wadigan jirnay la Saciid Maxamuud Farax ayaa bilownay inaanu qaadano talaabo muhiim ah oo ah in la beeri karo oo raadino calafka ku haboon dalka si marka abaaruhu dhacaan oo kale ay xooluhu helaan waxay cuni laayeen rabitaankaygaas ayaa waxa uu sababay inaanu ka sameeyno calafka narkaysan dhex taagan iminka thesis-kaygii annagoo tijaabinayna 3 nooc oo ka mid ah family-ga loo yaqaan Brachiaria kuwaas oo kala ah Mulato 1 Mulato 2 iyo Toledo markii aanu sameeynay thesis-kaygii waxaanu ku guuleysanay inay Mulato 1 ay tahay mid ka yara hooseysa xagga wax soo saarka xagga Toledona ay ka yara fiicnayd koritaanka ay laakiin Mulato 2 gan beernay oo asal ahaan ka keenay imka Kenya ka soo ibsanay ayaa noqotay mid ugu asalsan ee ugu fiican ugu waxtarka fiican imka saarka karasanba dabaysha dhacaysa xoog badan la adkeysanaysa biyo yarida way adkeysanaysa wixii harama ah ee hoosteeda ka soo baxaya way iska difaacaysaa way baabinaysaa oo muggaad arkaysan gacmaha isku qabsanayso ayaa oo galanay inay hawo iyo nafaqo ay kula tartanto marka imika waxaanu beernay 2 hektar oo horeeyay si tijaab ahaan aanu eegno inay suurtagal tahay in dalka laga balaarin karo mashruuca noocan kale waxaana ku guuleysanay inay mashruucan yahay kuwa ugu haboon ee hadda lagaga hortagi karo abaaraha inagu soo cawskan aad u jeedaan magaciisu yahay Mulato waxa uu faa'iidooyin fara badan u leeyahay xoolo dhaqatada sidaad ka warqabtaanba dhaqan ahaan xoolo dhaqatadeenu ma aha kuwa ku tiirsan xoolaha calafka ay beerteen balse waxay ku tiirsan yihiin calafka dabiiciga ah ee roobka ka dib dhasha taas oo sababi karta marka taas oo leh eelooyinkooda eenada ay leedahay waxa kamid ah marka uu roobku dhamaado ee dabeel xagaagu bilaabato ama jilaalku bilaamo cawskaasi ma aha mid adkaysi u leh inuu sii jiro oo uu baaba'aya taasina waxay hadhow tola
carqalad dhaqaale iyo nafsiyanba ama xoola la'aan ku keenta qofkii xoolo dhaqatada ahaa calafkani waxa uu haddaba halkii gelayaa calafkii dabiiciga ahaa oo waxa uu noqonayaa mid aad adigu kartidaada iyo maalkaaga iyo aad galiso oo aad beerto sida loo beero khudaarteenoo kale taas oo calafkani mar kasta uu yahay mid aad jaraysid deeta kuu soo baxayo aad ururin karaysid kana samayn karaysid waxyaabo fara badan haddaad u jeedo dhanka silageka ama hayga oo ururintaas sidiisoo qalalan taasna waxa uu ku suurtagelinayaa inuu calafkani noqdo mid aad loogu guulaystay ogyahay calafkani waxaa ku dheer inuu yahay mid u adkaysi badan cayayaanka taasoo iyaduna ah mid badanka xoolo dhaqatadu ama beeraleydeena kaleba ay kala kulmaan dhibaatooyin fara badan marka ay timaado la dagaalanka cayayaanka iminka intuu calafkani meeshan ku noolaa mar keliyata maan buufin waxna kumaan samayn keliyata waxaan la ogaaday digada iyo biyaha kuwaasoo sababay inaad sida arkayso uu baxo oo uu noqdo mid dhumucdaa leh caleentiisu dhumucdaa yeelato oo aad u ballaadhan una fiican marka calafkani ma aha calaf dhibaato fara badan u keenaya beertaada mana aha mid dhalaya siir fara badan kaasoo hadhow toole ka soo baxa ama dhiba dhulkaad wax ka beeraysay sidaad arkaysaan xilligii la goynayuu taagan yahay wax siidha oo uu leeyahay haba yaraatee ma jirto salaamaya magacayga waxa la yiraahdaa Mustafa Ali Ducaale waxaan joognaa mashruuca ee la yiraahdo Ramad iyo Galool bilowgiisii hore wuxuu ahaa in geela loo dhaqo si casri ah kadibna la keeno caano magaalada markii aanu biyo far badan qabanay waxaan ugu dhalatay geel sidaan u beero calaf isla markaana aanu sameeyno beer khudradu ay ka soo baxdo si wanaag waxaanu sahlay injineer Khalid waa markii koowaad geel loo beero calaf la doonayo in jilaalka la siiyo hadda ayuu gabagabeeyahay waa la jarayaa dhawaan waxa la yiraahdaa barakaariya la yiraahdaa waa Khalid baa beeray marka halkan waxaan filayaa hadda wixii ka dambeeyay tijaabadeenna markay hirgasho Soomaaliland isbedel weyn ayaa ka imanaya dhinaca dhaqaalaha iyo xoolo naaxinta